ciidan warqadii aan saddexda maxaan ku dhaahdaayay aan qoray ee saddexda page ahayd ayaa waxaan u dhiibay gabadh la oran jiray Caasha Barre Bawdoole oo Caasha Buuro loo yaqaanay waxaan Caasha ku xushay marka hore ayay qof aad u dhiiranahayd oo warar badan ay noo keentay oo reliable oo waxay ahayd qof serious oo diyaar u ah inay halganka maxaan ku dhaahdaa kaalinteeda ka gasho Caasha Buuro warqada markii aan u dhiibayay waxaan ku yiri Caashay qoraalka aad qaadaysid waxa haddii marka sidaa loo furo ee sidaa loo kala bixiyo waxa laga yaabaa 10 minutes ka bacdi inaanad noolaan inta xabad lagu la baxayo lagu dilayo ama lagu torture gareynayo inta lagu dhibo dabeetana maxaan ku dhaahdaayay oo war laga doono dabeetana lagu dilo waliba ee halkaad saad u qaadaysa halkaad gelinaysa iska daabay tiri halkaan gelinayo ana garanayay soo warqada maaha aan ku dhinto warqadii bay qaaday waxay u geysay nin la yiraahdo Cabdullaahi Muuse waana ninkan ugu dhiibay Cabdullaahi Muuse jaamac wadna qabad Cabdullaahi Muuse warqadii markuu helay warqada waxaan ku gunaanaday warqada markaad hesho markaad akhrido waa gunaanadkaygii jeex oo yaanay point bahlada yarar kidifkii aanay maxaan ku dhaahdaayay ku harin area Cabdullaahi buu ayay u dhiibtay Cabdullaahi wuu akhriyay wuxuu u yeeray nin la yiraahdo Ibrahim Jaamac oo ahaa ciidanka mariinada oo sarkaal ahaa oo imankana noolo mariinada imka wagaashan la saraabaa lagu yiri wali jooga ciidankii mariinada ayuu u yeeray wuxuu yiri dhammaan warbixintii berbere gudaheeda ayaa laynaga doonayaa saraakiisha ciidaad kalsoonida ku qabtid ayaad u yeedhaysaa waana soo qoraysaan dhammaanna waa xaqiijinaysaan warqadda waxaan ku qoray ciidan kasta tiradiisa na waa soo sheegaysaa ilaa operation baa loo diyaar garoobayaa lagu gala oo waxa weeyaan tiradu inay suganto ciidan walba fadhiisinkiisa hadduu miinaysan yahay iyo direction-ku ka miinaysan yahayna waa soo sheegaysaa ilaa direction-ku ka miinaysan yahay direction kale laga soo gelaya markaas hadii kale miina ku xanibaysay waxa aan markaa iri iyo tiknikadiisa iyo ciidan ahaan tiradiisa inta marka aad soo qortid marka aad soo diyaar garaysaan ayaan maxaan ku dhaahdaayay ay Caasha Buuran kula sii ballamaan ku dhaha ka iman ilaa qoraalkaas ka imanaya ilaa ay keenayaan Caashi way sugtay warbixintii bay soo diyaar gareeyeen wayna soo maxaan ku dhaahdaayay dhiibeen waayahay warqadda ay Caashi soo qortay ee ay soo dhiibtay iyadoo aanan tuurin iyadoo gabowday waa taa warqadii loo soo dhiibay waa warqadii loo soo dhiibay halka hoose ee guul khayr lama ku aragtaan waxa weeyaan ana ku iri waxaan garanayaa inaad soo qorteen ee guul khayr la ana taa hore ugu qoray saxiix waa ee guul khayr laban ee guul khayr leh